xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac iyo sidoo kale duqa degmada Saylac Saacad Daahir Ciige xoghayaha fulinta dowladda hoose degmada Saylac Cilmi Saal Farax ayaa waxa maanta si toos ah ugu furmay kalfadhiga 2019 kalfadhigan ayaa waxa ay ku gorfeenayeen mashaariicda ay soo wadaan golaha deegaanka ee degmada Saylac sanadka cusub ee 2019 iyagoo sidoo kale wax iska weydiinayay waxyaabihii ka qabsoomay mashaariicdii sanadkii hore ee 2018 markuu soo ilaaday kalfadhigaasi ayaa waxaan ugu wareysi ka qaadnay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kalfadhigan ay kaga hadleen waxaan ka soo baxnay shirkii golaha sanadkan kalfadhigii koowaad 2019 ayaa ka soo baxnay كنت شركة وحكاها لي وحيابه سنة كيورا وساق بصومي قالها هي وحيابها سنة كان لو بس على طلقها إن لقبتلوا بهاي أيوك هذه هي رمها من الجليد دجمدا أيوك هذه شركاتي كل شركة وها مهم وها دجمدا أيوها هذه دول ما سنتهاي الحمد لله يعني كمان كسب حني الفردقي سنة كعصب يلا بدو كني سجالة طلقها وحنا كهذني sidii aan wixii sanadkii hore noo qabsamay degmada iyo waxa sanadka dambe insha Allah aan ku tarjumeyno wax ka qabano waxaan ka soo baxnay shirkii ugu horeeyay sanadka 2019 golaha deegaanka ee degmada Saylac kaas oo baarnaa ujeedadiisu in laga wada hadlo mashaariicda wixii sanadkii hore qorshaha ku jiray sida ay u fuleen iyo si ayna u fulin insha Allah dhamaantood way noo fuleen imikana waxyaabaha soo socda ee sanadka in la qabto la doonayo ayaa la isla falanqeeyay waxyaabaha la isla falanqeeyayna waxaa ku badnaa biyaha iyo arrimaha nabadgelyada iyo wadada. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaa muhiimadda kalfadhiga ahaa nabadgelyada iyo muxuu ahaay wadada إن شاء الله لكن اللي هي ونلاقي كرب قليل ونورد ماته وإحنا هو حسامي مترو لكن شركة حوق يسوعها هالنبيت جديدة يوضطها هنا حوق السعر مانته. السلام عليكم ورحمة الله. markaad eegto dardarka iyo dadaalka ay muujinayaan guud ahaan maamulka dowladda hoose degmada Saylac iyo xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxa ka muuqata inay dadaal ugu jiraan sidii wax uga qaban lahaayeen baahiyaadka ku hareersan guud ahaan deegaanadan hoos yimaada degmada Saylac. waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhigadalool wararka Ariel TV magaalada Saylac.